bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa idin salaamay dhammaan daawadayaal dadka barnaamijkeena ku xiran iyo kuwa uu fursad u helay inuu gaaro. Maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijkeenii saddexaad ee programkii ahaa ama barnaamijkii ahaa adiga iyo bulshadaada, adiga iyo qoyskaada. waa xalaqadeeni saddexaad. Waxaan ognahay nolosha caadiga ah waxaa asaas u ah unugga ayaa asaas u ah. Selka marka la qeexayo waxaa la dhahay waa shayga nolosha asaaska u ah ama yani bulkeetida nolosha ay ka dhisanto ayaa waxaa la yiraahdaa unugga caadiga ee nolosha. Sidoo kale unugyada markay isu imaadaan jirkeeni cellska ay isu imaadaan ay sameysmaan tissues ay sameystaan kadibna ay sameysmaan maxaa la dhahay organs ay sameysmaan. sidaasna systemka jirkeena uu ku sameysmaayo wuxuu leeyahay qeyb la yiraahdo functional cells ay leedahay. qeyb kasta waxay leedahay cells maxaa la dhahay waxa ay kasoo sameysmaan u ah qeybta shaqada u ah. marka bulshadan waxay leedahay waxa functional cell u ah ama unugga shaqada u ah qoyska. muhiimada qoyska halkaas ay la eg tahay. qoyska haddii uu xanuunsado bulshadan way xanuunsataa. qoyska haddii uu maxaa la dhahay uu hagaago uu toosana bulshadan way toostaa, way isku xireen, sidaas ay isku yihiin. marka waxaan rabnaa inaan ogaano marka hore qoyska marka la yiraahdo dhowr nooc ayaa loo kala qaybiyaa. qeyb waxaa jirto qoys ama ay afka qalaad lagu yiraahdo nuclear family la yiraahdo ayaa jiro. nuclear family waxa way waa qoyska buuda ah way. nuclear family wuxuu ka bilaabanayaa waa hooyada iyo maxaa la dhahay iyo aabaha iyo caruurtooda ayaa waxaa la isku yiraahdaa nuclear family. waa qoyska ugu haboon caruurta inay ku koraan, ay ku weynaadaan, laguna tarbiyeeyo, sababtoo ah waxay ka faa'iideysanayaan xiriirka ka dhaxeeyo labada waalid, xiriirka ka dhaxeeyo naxariista iyo jacaylka ka dhaxeeyo, iyo sidoo kale fursadaha dhaqaale ayay ka faa'iideysanayaan. qoyskaasna ayaa waxaa kasoo baxayo caruur inta badan tarbiyadoodii iyo maxaa la dhahay akhlaaqyaadkoodii iyo wanaagga bulshada qayb badan ka qaadan karo ayaa halkaas kasoo baxo. sidoo kale waxaa jirto nooc labaad oo xilliyadii dambe dunida aada ugu soo batay oo la yiraahdo single parent ama waalidka halka keli ah. macnaheedu waxaa waaye hooyo iyo caruurteeda oo wada nool ama aabo iyo caruurtiisa oo wada nool ayaa waxaa la yiraahdaa waalidka keli ah ayaa la yiraahdaa. marka yani inta badan waxay yiraahdaan hadda tusaale ahaan Mareykanka oo kale waxay dhahaan afartii caruur oo la arkaba mid kamid ayaa wuxuu kusoo koray ama wuxuu ku korayaa qoys hal keli ah, abaweenka ama labada aabe ama aabaha iyo hooyada keli ah halkood uu yahay ayay kusoo korayaan. taas oo ay keenayso isbedelka ku dhacay bulshooyinkeena xilliyadii lasoo dhaafay. Soomaalidan sidoo kale kuma yaro waalidiinta midka keli ah ha ku imaato furiin, ha ku imaato geeri, ha ku imaato sababo kale, safar ha ku imaato, aad ay u badan tahay in hal waalid keli ah caruurta uu la rafaado oo korintoodii wax badan ka qayb qaato. nooca saddexaad ee qoyska waxaa la yiraahdaa qoyska ballaaran. waa qoys aada u ballaaran oo ay ku bahoobeen ama isugu imaadeen dhowr aabe iyo dhowr hooyo oo wada jir ah oo ka dhaxeeyo xiriir qaraabanimo ama xiriir maxaa la dhahay guur uu ka dhaxeeyo oo hal guri ama hal meel ku wada nool ayaa waxaa la yiraahdaa qoyska ballaaran ama extended family ayaa la yiraahdaa. familieskaasi ayagana waxaa way tusaalaan dadka familieskaasi ku dhex nool waxaa kamid ah tusaalaan eedooyin laga yaabaa, adeero ayaa laga yaabaa, abtiyaal baa laga yaabaa. dadkaas oo wada nool ayaa waxaa la yiraahdaa marka nooca saddexaad ee qoyska waa kuwaas. noocyo kale ayaa jiro oo qoysaska kamid ah oo noocyadan soo hoosgali karo, balse maxaa la dhahay muhiimad saas ay leeyihiin oo maxaa la dhahay xubnahooda halkan inaan ku xusno ay u baahan yihiin ma lahan. waxaa muhiim ah iyadan sidoo kale inaan sheegno qoyska wada shaqeyn ayaa ka dhaxeyso. xubnaha qoyska ee aabaha iyo hooyada iyo caruurta wada shaqeyn ayaa ka dhaxeyso. tusaale ahaan haddaan soo qaadano qoyskeeni Soomaaliyeed baadiyaha ku noolaa, waxaan ognahay aabaha inta badan wuxuu qaadaya mas-uuliyadda banaanka ah. haddii maxaa la dhahay xanaaneynta beerta ay tahay, haddii ay tahay shaqo caadi ah banaanka wax laga soo qabanayo ay tahay, howlaha waaweyn oo banaanka ah inta badan waxay ku dhacayaan aabaha ayay ku dhacayaan. howlaha guriga ah howsha guriga lagu qabanayo ama xanaaneynta caruurta iyo waxaas inta badan waxay ku dhacaan hooyada ayay ku dhacayaan. caruurtan haddii ay dugsi aadayaan ama haddii ay marar qaar xoolaha la raacinayo ama taasna way dhacdaa. marka qoyska wuxuu leeyahay wada shaqeyntaas wuxuu u samaysan yahay sida tiimka oo kaleeto oo qof kasta mas-uuliyad gaar ah dushiisa ku dhaceyso ayuu leeyahay. waxaan aada u fiican in xubnaha qoyska mid kasta midka kale uu caawiyo, wada shaqeyn ay ka dhaxeyso, iyadoo haddana howlaha marar qaar ay kala xadidnaan karaan oo qofba meel u badnaan karo.
ayaa haddana waxaa aad u wanaagsan in tusaalahaan howsha qofkan u saarnayd qofka kale uu la caawiyo. hooyada gurigeeda oo kaleed guriga xanaaneynaysay oo kaleed aabaha inuu guriga wax kala xanaaneyn karayo, haddii ay tahay cuntadii ay sameynteeda ay tahay, haddii ay tahay tarbiyada caruurta oo iyo xanaaneyntooda cunto siintooda ay tahay. waxyaabahaas dhan waa waxyaabo mas-uuliyad ku wada dhicayso, balse marar qaar mid ka mid ah labada waalid midka kale u badnaan karo ayaa laga yaabaa. waxaa kaloo qodob ah muhiim asigan ah xiriirka ka dhexeeyo xubnaha qoyska. xiriirka qoyska ka dhexeeya wuxuu aad ugu wanaagsan yahay markuu ku dhisan yahay ixtiraam, naxariis iyo jecel. markuu ku dhisan yahay ayaa waxaa halkaas kasoo dhalan karo ama kasoo baxayo caruur aad u tarbiyaysan oo bulshadana berito aan dhibaato u keenaynin ama balwad iyo waxyaabo kale aan la qabsanaynin. marka xiriirkaas uu ku beesgaraysan yahay waxyaabahaas naxariista iyo jaceylka iyo maxaa la dhahayay ixtiraamka uu ku beesgaraysan yahay, taas nafteeda waxay ka qayb qaadanaysaa qodob aan gadaalka sheegi doono oo tarbiyada ah. marka caruurta ay arkaan waalidiintooda oo yani in badan xiriir fiican ka dhexeeyo, wada tashanayo, frictionkooda iyo isku dhacooda uu yaryahay, taas waxay ka qayb qaadanaysaa in caruurta kobacooda iyo maskax ahaan aqligooda, wada shaqeyntooda, hadhowdii bulshada dhexgalkooda, waxaas dhan ay halkaas ku wanaagsanaato inay meesha ay kasoo baxdaa suurtagala. bani aadanaa leeyahay haddii ay dhacdo khilaaf, waxaa aad u wanaagsan labada waalid inay khilaafkooda ku xaliyaan meel ka baxsan indhaha iyo dareenka caruurtooda, meel ka baxsan inay ku xalistaan ayaa aad u muhiim u ah. dhaqanka Soomaaliyeed in badan waxa way dhibaatooyin ayaa ka dhaco dhankan, maadaama bulshadeeni ay tahay bulsho noocan ma reer baadiinimo u dhow oo ilbaxnimada iyo xadaarada ay ku yar tahay. way yar tahay in waalidiintu ay bartaan qaababka khilaafaadkooda dhexdooda u xalisan karaan ama qaabka khilaaf loo xalin karo inay raadiyaan. sidoo kale waxaa aad u yar inay raadiyaan qaabka caruur loo tarbiyan karo, marxaladda caruurta ay marayaan iyo tarbiyada ku haboon, waxyaabahaas inay raadiyaan iyadana aad u yartahay. marka waxaa aad u fiican marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu waalidka dhigo uu caruur ku siiyo in cilmigii aad ku tarbiyan lahaydna aad isku hubayso oo aad raadiso, ama akhrin ku raadi, ama dowro aad ka qayb gasho ku raadi, ama maxaa la dhahayay maanta dunida wax walba way fudaadeen internetka ka raadi ama buugaag ku raadi. waxyaabahaas dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha qofka waalidka caruurtiisa iyo tarbiyadooda aad uga qayb qaadan karo ayay ka mid yihiin oo aqoontiina si sahlan uu ku heli karayo. waxaa muhiim ah sidoo kale dhanka go-aan gaarista. waxaan sheegnay in marar qaar qoyska dhexdiisa loo baahanayo in arrimo go-aan laga gaaro, yani arrimo badan ayaa u baahan karo in go-aan laga gaaro. tusaalahaan waxaa suurtagal ah in guri laga guuro guri kale loo guuro oo kale go-aankeeda in la qaato, magaalo in laga guuro magaalo kale loo guuro, wadan in laga guuro wadan kale loo guuro, in agabka guriga mid ka mid ah la iibiyo ama lasoo iibiyo. waxyaabahan dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha qaraaraad ama go-aamada in laga qaato loo baahan karo ayay ka mid yihiin. marka waxaa muhiim ah in qaab gaarista go-aamadaas ay ku dhisnaadaan niqaash ama wada hadal inay ku dhisnaadaan, oo keli ah aanan dictatorship aan iska noqono keliya aabaha aanan go-aan iska gaarin ama hooyada aanan go-aan iska gaarin, ay ahaadaan wax marka hore dhiraandhirin iyo wada shaqeyn ku imaado. kadibna marka ugu dambeyso mas-uuliyadda ugu dambeyso waxaa iskale taban aabaha ayaa iskale, asiga ayaa maxaa la dhahay gurigaas mas-uuliyaddiisa ay saaran tahay, go-aanka ugu dambeeya asiga gaarayo. laakiin wada shaqeyntaas iyo wada hadalkaas iyo waxyaabahaas laga niqaashay ayaa waxay qayb ka tahay broseska abuurista bulsho aad u wanaagsan iyo caruurtooda la tarbiyana ay ka mid tahay. dhanka tarbiyada ayaa qodob waxyaabo aad u kooban aan rabaa inaan ka dhaho. tarbiyada waxaan sheegay qofka wuxuu u baahan yahay in aqoon iyo cilmi iyo waxyaabo badan tactics badan uu helo ay u baahan tahay. haddana waxaa muhiim ah marxalado caruurta aad tarbiyantooda aad muhiimadda inay siiso aad tahay. tusaalaha koowaad ama xeerka koowaad aad caruurtaada tarbiyantooda aad xoog ugu saari karto waxaa ka mid ah inaad adigu noqoto tusaale wanaagsan. waalidka wanaagsan tarbiyadiisa iyo dhaqankiisa iyo wixiisa ay wanaagsan yihiin, waxay u badan tahay in sifooyinkaasi ay si yani unconscious ama si aan la dareemayn aan ugu gudbaan caruurta ay ugu gudbaan ay u badan tahay. marka sifooyinka aad rabto in caruurtaada ay yeeshaan, marka hore adiga waalid yahow ku dadaal adiga inaad yeelato. hadday tahay maxaa la dhahay ixtiraamkii, hadday tahay akhlaaqiyaadka wanaagsana, hadday tahay waxbarashada iyo qiimo siinta muhiimadda waxbarashada ay tahay, waxyaabahaas dhan markuu waalidka sifooyinkaas asiga uu leeyahay way sahlanaanaysaa in caruurtiisa uu u gudbiyo. waxaa kaloo muhiim ah caruurta marxaladaha la tarbiyan karo ugu wanaagsan waxaa ka mid ah 5 sano ilaa 6 sano ilaa 12 sano.
wixii 6 sano ka hooseeyo caruurta kaliya waxay u baahan yihiin iyo naxariis iyo daryeelkii iyo dharkooda iyo cuntadooda in muhiimad aad saarto oo cunto nafaqaysan aad ku koriso caruurta wixii xilligaas ka dambeeyna cilmigooda iyo tarbiyadooda iyo akhlaaqooda iyo dabagalkooda muhiimad badan aad siiso wixii 12 ka dambeeyo oo maxaa la dhahay markaas waxay u baahan yihiin kaliya qancin xoog iyo ul iyo waxyaabo badan wax kuma lahan xilligaas waxay u baahan yihiin qancin aslan u sheegna sideedaba waa laga fiican yahay anaga dhaqankeena ka mid yahay ma ogiye qaabta ma ahan wada tarbiyo wanaagsan ma ahan markasta waxaa fiican in waalidka caruurtiisu isku dayo inuu fahmo inuu qanciyo daban caruurtu way kala duwan yihiin mida maxaa la dhahay si deganaanshaha oo degan mida laga yaabo inuu kulul yahay mida way kala duwan yihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala bani aadamka ma simin sidaas ay caruurtuna u kala duwan yihiin marka waxay u baahan yihiin in mid kasta marxaladiisa iyo aqligiisa iyo dareenkiisa iyo sifooyinkiisa gaarka uu leeyahay kuwa lamid ah inaad ula macaamisho xilliga ugu habboon ee caruurta dhiirigelintooda la dhiirigelinayna ma ahan xilliga ay qaldaad galaan ee waa xilliga ay wax wanaagsan ay sameeyaan caruurtaada mid kamid ah dadaalay iskuulku kaalin ka galay caruurtaada mid kamid ah wax wanaagsan guriga ka sameeyay waa xilliga ugu habboon oo la dhiirigeliyo aad ugu mahadceliso waxyaabahaas ay qabteen haddii ay dhacdo qaldaad inay sameeyaan bedel aad iqaabi lahayd waxaa la sameynayaa qaldaadka ay sameeyeen inay saxaan tusaale ahaan meel bay wax ku daadiyeen waxaas meeshaas ay ku daadiyeen in ayagu ay ka tiraan ama ay ka sameeyaan oo kaleeto taas baa qaababka ugu wanaagsan ee tarbiyadu ka mid ah marka xubintii ahayd ama xalqadii ahayd adiga iyo qoyskaada halkaasaan kusoo koobaynaa aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dadka marka aad la hadlayso indhahooda eeg marka aad aragto u dhoola cadeey si aad u xushmayso markasta ku dheh fadlan sidoo kale u mahadceli si aad u dareensiiso inay muhiim ku yihiin samaynta intaas waxay badinaysaa damiirka bulshadeena